Ma ogtahay in Facebook, YouTube iyo TikTok ay si buuxda u adeegsanayaan maskaxda macmalka ah oo loo yaqaan AI? Fideogan kooban waxaan ku sharxi doonaa sida AI u shaqayso gudaha baraha bulshada aad maalin walba isticmaasho. Facebook wuxuu adeegsadaa AI si uu u fahmo waxa aad jeceshahay. Wuxuu falanqeeyaa waxyaabaha aad leegta saarto, faallo ka bixiso, ama la wadaagto. Wuxuu sidoo kale isticmaalaa maskax macmal ah si uu kuu siiyo qoraallo iyo sawirro aad xiisayn karto. U joojiyo akoonnada been abuurka ah. U ogaado hadallada nacaybka ah iyo xadgudubyada. YouTube wuxuu si aad ah ugu tiirsan yahay AI. Wuxuu falanqeeyaa fiidiyowyada aad daawato, muddada aad daawatay, iyo waxyaabaha aad jeceshahay. Kadibna wuxuu kuu soo jeedinayaa fiidiyos la mid ah. Sidoo kale, maskaxda macmalka ah waxay YouTube ka caawisaa inuu ogaado haddii fiidiyo uu jebinayo xeerka. Inuu fahmo mawduuca fiidiyowga xitaa adigoon taytalka akhriyin. TikTok waa mid ka mid ah baraha bulshada ugu firfircoon ee adeegsada AI. Markaad daawato hal fiidiyo, TikTok wuu arkaa imise ilbiriqsi ayaad daawatay. Ma jeclaatay? Ma joojisay? Ma la wadaagtay? Haddii aad jeceshahay muuqaalada qosolka leh, AI ayaa bilaabaya inuu kuu keeno kuwa la mid ah. Sidaas ayay ku dhacdaa in aad iska ilowdo wakhtiga adigoo iska scroll garaynaya saacaddan. Maskaxda macmalka ah waxay ku jirtaa meel walba. Ma aragtid, ma dareentid, laakiin waxay si qarsoodi ah u falanqaysaa dhaqdhaqaaqaaga maalin kasta. Hadda waad og tahay in Facebook, YouTube iyo TikTok ay si weyn kuula socdaan. Haddii aad rabto in aad wax badan ka barato maskaxda macmalka ah iyo teknoolojiyada cusub, fadlan subscribe ku dhufo, like saar, lana wadaag asxaabtaada.